waxaynu u dabaaldegaynaa guulihii aynu ka gaarnay dagaaladii maalmihii la soo dhaafay aynu ku qaadnay deegaano ka tirsan gobolka Amxaarada ee dalka Itoobiya. ciidamadeena Suudaan waxay qabsadeen deegaano ka tirsan maamulka Amxaarada. dhulka aynu qabsanay ma aha mid ay leedahay Itoobiya, waa mid aynu hore u leeyahay haddaynu nahay Suudaan. waa dhul beeraley ah oo hore ay nooga qabsadeen Itoobiyaanku. iminka annaga ayaan ku sugan inta badan dhulkaasi. qaybaha kale ee haray waxaynu doonaynaa inaynu dib ula wareegno ilaa iyo inta gacan ku haynta deegaankaas uu dib ugu soo laabanayo Suudaan. sidaasi waxaa yiri sargaal sare oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee waddanka Suudaan, kaas oo qayb ka ah howlgallo maalmihii la soo dhaafay lagu qaaday deegaano ka tirsan gobolka Amxaarada. dhankeeda dawladda Itoobiya waxay sheegtay in daandaansi uu kaga imaanayo dhinaca Suudaan. waxay wacad ku martay inay ka hortagi doonto oo ay iska caabi doonto guuduulaamada gardarada ee kaga imaanaya dhinaca Suudaan. dhanka kale Itoobiya waxay ku eedeysay Masar, Suudaan iyo TPLF inay xiriir leeyihiin. magaalada Maqalana waxaa soo gaaray hogaamiyaasha ugu sarreeya TPLF. waxaa la sheegay in halkaas ay ka soconayaan dabaaldegyo xooggan kuwaas oo lagu muujinayo awoodda TPLF. haddaba si aynu u gudagalno warbixinta marka hore page-kan ku soo biir leeg saar oo follow dhasiina share garee warbixintan. saraakiil ka tirsan dalka Suudaan ayaa sheegay in howlgallo ballaaran oo ay maalmihii la soo dhaafay ciidamada dalka Suudaan ay sameeyeen ay ku qabsadeen dhul beeraley ah oo asal ahaan horey ay u lahaayeen dadka reer Suudaan, balse ay qabsadeen Itoobiya sanado badan ay haysteen. iminka ay dib ula soo laabteen. Suudaan waxay sheegteen dhulka ay qabsatay ay horey uga arrimi jireen maamulka Amxaarada waddanka Itoobiya. waa dhul wax soo saarkiisu aad u badan yahay, dhul beereedyo ah iyo xoolo daaqsin. waxayna sheegeen in iminka ciidamada dalka Suudaan ay gacanta ku hayaan inta badan dhulkii asal ahaan ay Suudaan iska lahayd ee ay ka arrimi jireen gobolka Amxaaradu horena xooga looga qabsaday Suudaan. saraakiil u hadlay dalka Suudaan waxay sheegeen inay doonayaan in howlgalladu ay sii socdaan ilaa iyo inta laga xaqiijinayo in dhul Suudaan ay leedahay uusan ku jirin gacanta Itoobiya. hadalkani waxa uu soo baxay iyadoo Itoobiya ay la kulmayso dhinacyo kala duwan oo weerara ku haya, waxaana u muuqday mid kale oo dhabarjabin ku ah xukuumadda Abiy Ahmed. dad ku sugan deegaanada Amxaarada ayaa sheegay in halkaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo xooggan. inta badan ciidamada ka soo jeeda gobolka Amxaarada ayaa dib ugu laabtay deegaankooda si ay iskaga difaacaan duulaanka kaga imaanaya dhinaca Suudaan. afayeen sare oo u hadlay ciidamada qalabka sida waddanka Itoobiya waxa uu sheegay inay la socdaan daandaansiga kaga imaanaya dhinaca Suudaan. waxa uu sheegay in dhowr weerar oo ay soo qaadeen ciidamada Suudaan aysan Itoobiya kaga jawaabin sidii loo baahnaa, taasoo uu sheegay inay kaga gol lahaayeen inaan xaaladdu aysan noqon mid cakiran balse lagu dayo in arrinta xal loo raadiyo. iminka waxa uu sheegay in xalkii la dhaafay lana marayo iminka in Itoobiya iska difaacdo Suudaan maadaama daandaansi ay ku hayso dhulkeeda. waxa uu sheegay in deegaanada la qabsaday ay yihiin kuwo ay leedahay Itoobiya isla markaasna ay dib ula soo laabanayso. dhanka kale Itoobiya waxay ku eedeysay Masar, Suudaan iyo TPLF in u dhaxeeyo heshiis gaar ah oo ay ku wiiqayaan awoodda Itoobiya ayna ku doonayaan inay dhabarka kaga jabiyaan samaynta biyo xireenka weyn ee webiga Niil ee Itoobiya ay doonayso in buuxintiisa ay dib u bilowdo. Masar taageerada ay siisay TPLF waxay u soo marsiisay dalka Suudaan. madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaax al-Siisi ayaa kol hore booqday magaalada Juba ee caasimadda waddanka Suudaan, asagoo dawladda Suudaan kala hadlay sidii loo qaadi lahaa dardargelin ku aadan iskaashiga wadamada Suudaan, Masar iyo TPLF dagaalka kula jirta dawladda Itoobiya. sidaasi waxaa sheegay diblomaasi sare u dhashay dalka Itoobiya. TPLF ujeedka ugu weyn ee ay ka leedahay heshiiskani waxaa lagu sheegay inay tahay inay doonayso in meesha laga saaro xukunka Abiy Ahmed iyo qoomiyadda Amxaarada oo iyadu cadow weyn u aragta TPLF iyo Tigreegaba. dhanka kaleetana madaxda ugu sarreysa ururka Tigreega waxaa la sheegay inay gudaha u galeen magaalada Maqala kadib markii habeenkii xalay ay la wareegeen ciidamadoodu.
dabaaldegay ka soconaya gudaha magaaladaas waxaa lagu arkay saraakiil sarsare oo ka tirsan jabhadda TPLF sidoo kale waxaa la sheegay in madaxweynihii horeete ee Tigreega uu asaguna magaaladaasi tagay iyadoo ilaa iyo haatan aysan jirin cid xaqiijisay run ahaanta warkaasi marka laga reebo qaar ka mid ah saraakiisha TPLF oo warkan laga soo xigtay dabaaldegyada iyo fantasiyaha ay sameynayeen shacabka magaalada Maqale waxay ka dhignaayeen inay soo dhaweynayaan guusha ay gaareen ciidamadoodu dhanka kale dawladda Itoobiya waxay ku jirtaa diyaar garow xoogan oo dagaal boqolaal askari ayay tababar u soo xirtay iyadoo arrintan ay soo agaasitay waaxda gaashaandhigga dalka Itoobiya ujeedka waxaa lagu sheegay inay tahay in ciidamada oo wali tababarka dhameysan in si degdeg ah tababarka loo soo xiro in loo baahan yahay diyaar garow xoogan oo dhanka amniga qaranka ah Itoobiya waxay sheegtay inay wajahayso cadaadilo duulaamo dhinacyo kala duwan kaga imaanaya balse ma aysan xusin halka ciidamadan la diyaariyay loo diri doono marka laga reebo in Itoobiya ay dhinacyada kala duwan ee dagaalku kala dhaxeeyo iminka ay wajihi doonto